kulankan oo ay ku wada sugnaayeen wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya madaxa xukuumadda Galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka dhacay xarunta guddiga dib u heshiisiinta ee magaalada Dhuusamareeb waxaana looga dhawaaqay go'aanka ah in dawladda federaalka si buuxda ula wareegtay mas'uuliyadda amniga ee magaalada Dhuusamareeb si loo xaqiijiyo badqabka amni ee goobaha lagu qabanayo howlaha maamul dhisidda Galmudug wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa tilmaamay in dhammaan howlihii qabsoomay ay caddeyn u yihiin guulaha la gaaray oo ugu dambeyn xaqiijinaya in dawladdu la wareegtay mas'uuliyadda ammaanka ee magaalada Dhuusamareeb waxaan rabaa maanta halkaan inaan ka caddeeyo hawshii laga hayay Galmudug oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Galmudug ay wadeen waxa ka soo baxay natiijooyin wax ku ool waxaan rabaa inaan sheego ciidamadii waa la isku daray labadii police labadii nabad sugid iyo shalay oo ay soo gabagabowday oo la isku daray military ciidankaas afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in la isku afgartay ciidanka la isku daray inuu mas'uul ka yahay amniga magaala madaxda dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb fatrada hawshan la wada ay socoto inta laga gaarayo dawlad goboleed Galmudug leedahay oo la isku raacsan yahay oo awood u leh khadamaadka iyo horumarka Galmudug u baahan tahay inuu bixiyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir iyo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa si wada jir u sharaxay qorshaha la wada qaatay ee amniga magaalada Dhuusamareeb kaasi oo dawladdu ku qaadayso mas'uuliyadda ammaanka ee magaalada Dhuusamareeb waxaana Sheekh Shaakir oo ah madaxa xukuumadda Galmudug uu tilmaamay in qorshahan lagaga maarmayo ciidamo ajnabi ah oo la keeno caasimadda mas'uuliyadda hadda ciidamada federaalka la isku daray ayaa qaadaya wasiirka amniga ayaana u fadhiya ee federaalka ayaa u fadhiya waxaana rajaynaynaa inay ku guuleystaan annaguna wax kasta inooga baahdaan garabkoodan taaganahay waxa mar haddii lagu wareejiyo mas'uuliyaddii waxaan rajaynaynaa ciidamo kale oo ajnabi ah iyo waxaas inaan loo baahnayn ayaan rajaynaynaa oo markaas yani amnigii waa loo baahan yahay haddii loo baahan yahay haddeera meesha laga sheegi lahaa marka waanaan idiin sheegaynba waayo baahidii waa la daboolay dawladda federaalka ayna marqaatiga ka tahay annaguna marqaatiga kana guddiguna marqaatiga ka yahay marka waxaan cadeynaynaa ka federaal ahaan in maanta laga bilaabo 2 Agoosto sanadka 2019 ee si guud ciidanka federaalka qaybahooda kala gidisan ay mas'uul ugu yihiin amniga Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan gaarsiinaa fariintan ah iyo bulshada ku nool reer Galmudug inay halkaan imaan karaan in amnigana hadii ahaan lahayd garoonka laga soo dego diyaaradaha meelaha laga soo gal checkpointska iyo goobaha ka dhacay shirarka oo dhan iyo guud ahaan magaalada waxa mas'uul ka ah ciidamada federaalka qaybahooda kala gidisan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Baadiyo gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa tilmaamay in go'aankani uu fulin u yahay shuruudo kaga yimid beelaha lagu casuumay shirka dib u heshiisiinta ee magaalada Dhuusamareeb annagana waxaan loo xil saaraa meel nabad dadka inaan keeno dadku waxaan u sheegaynaa marka annaga waxaan idin karnaa meel nabad aan keenina oo waxaan loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay haday nabad noqotana waxaa idin karaa marmarsaba ma laha inaad isugu timaadaan caasimadiina oo aad ka wada hadashaan danihiina oo aadan ku xirina يعني aan lagu xirin waxyaabo kale dad aan shuruud la geerin talada waxay ka dhaxaysaa reer Galmudug ayaa tala laga rabaa inay tashadaan wixii ka soo halaabay inay ka tashadaan mustaqbalkooda inay meel saaraan ayaa laga rabaa ugu dambeyn xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ku hadlayay codka xildhibaanada ka qayb galay kulankan ayaa booriyay go'aankan la wada qaatay maamulkiisii amniga ee gacanta ku hayaan ciidamadii dawladda federaalka inaan u xaqiijino annaguna maanta goobjoog aan u nahay waan rajaynaynaa insha Allah si habsami leh oo kalsooni leh oo cid waliba ay kalsooni ku qabto inay arintaas u meel marto qorshahan ayaa daba jooga howlaha dawladdu u qaaday dhanka ciidamada ee deegaanada Galmudug kuwaasi oo lagu soo gabagabeeyay dhawaan magaalada Dhuusamareeb sida isku dhafka iyo qalameynta ciidanka Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb